والله أنت ساق لها كده درادة كورتان كوري سودو الفنان عمران قرامي مشاني وايد عدا ضدك تسيسه وحكم مدو واحد ضدك كم مدو دي واحد كلمة ما عدد كلمة واحد ضدك كم مدو دي واحد سأركنتي ولا رجع قدر زاد عدور هذا مركا تلفزيون قلت أساسا وصليسها والله هذا مركا ومركا وقدم بيسيبان كورو أدا جعد ما يقول تسيبان كورو مردم بول ميل كل مس استاغنا نقد جعد هذا دم معك خلدنا هذه سنة وركا وآخرين كورو ورياش جامعة وقصة بحاته ما آخرين كرام معك خلدنا ورت هذه والله بالله إلا ما أمليني ما تسكك إلا أمليني الشيخ يا سان كوي ديني دي halkan waa idaacada laga furay dalka Soomaaliya dadkeeni waxa la yiri dhereeg iyo barwaaqo iyo nabad iyo madaxweyne fiican ayay haleen ku soo dhawaada warkiyo haatan fidsan sabeel ma hanisi gacanta safiican soo war akhrintaad masaasa waxa laga rabaa in sida u akhrid keen adiga horta warka waxa la rabaa adiga horta day saa u faraxsana jac ugu dhigtaa ilmaha horta door biyo ku dhacan maxay iga dhigtaa television ma rabtaa inaan furano mise ma rabti واربا هاد سداري وركي او فيتسن تساسي دهان دي نمانك وركا اخري غبدها iyo maaha dhageyso marka aniga dhageyso aniga horta dhageyso war ma ba akhrin kara bas horta aniga hadalkii kiigu horeeya ba jacay igu dhijisay be maana ba hadli kara idaacad see ku furana marka horta bilowdid weeye hadda sida aan dhaho ilaa ina baratay maya idaacada marka aan furano ina furano mise ma rabti warba dhageyso hadda warba ay amsad dhageyso way waxay dhahan dadku ma taqaanaa halkani waa laanta afka Soomaaliga idaacada hay dhageysan ama dhageyso wararka maanta naga imaanaya magaalada Boosaaso ayaa waxay sheegayaan daadadkii ku fatahay dhawaano gobolka Bari iyaga oo buuraha ka soo rogmaday iyo duufaanihii waliba dhinaca karkaar ka imaanayay ayaa si lama filaana magaalada Boosaaso dhinaca baalada iyo biyo uga soo isku bedeshay naga tagriya yaa waxa soo war kugu soo dhoray adiga markii waayay mumkiinad baa taam qof baa taam markii waayay igu soo cali maxaa tana waa dhahayaa sidaas kale dadii hoodi BBC iska dhigo odaga fadhiya ninka fadhiya maxaa magacis halkan waa idaacada SBC iyo Shabeelle oo isku jira waxayna idin kala hadlayaan mawjadaha ka gaaban 18 mitir baan inta kaliya halkan waa idaacada Shabeelle iyo isku jirta mid biyaha dadka u furi jirtay halkan nagala socda iyo warkiyo dhan horta waxaan rabaa inaan daacad ku lahaado adiga ma aamino musuuliye ilay tahay wariye dheer waa ogtay baan kugu maslay anigana ii qirday waaba u jeedaaba inta dambe xataa naxwiga aan saaray iyo turkada aan saaray xataa ma saari kartid waxa xaqiiq laga hadlay qofka limintiisa wala ogolada qofka limintiisa siga noqoto horta adiga adduunka lama arag qof limin oo ogolaatay noqto haye idaacad ma furana mise ma furana maxaa idaacad ma furana waxaan igu soo celinaysaa idaacad dhalinyaro badan oo asxaabi waxaan furanaynaa idaacada in adayga maya dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo baagamuda inaan dalkiina shaqo abuur uga sameeyno wadankaana joogno shaqo abuur uga sameeyno saasaan rabaa laakiin aniga marwadaadii ahayd ama jacaylkaaga qaaska ah baad ii quulaadeen qofka ku yimaado ay ceyrinaysaa soo shaqo ku soo doonaya shaqo markii laga hadlayo jacayl iyo waxa derbigaas la soo saaraa halkaas saar geedka maarta horteena geedka soo saar dad siman baan hamiyaan idiga had marka aynu idaacad iyo shaqo iyo mustaqbal iyo ka sheekeynayno shaqo jacaylka inaga daadii boss baan ku leeyahay marka ama waxaan ku leeyahay boss hay dhihin boss hay dhihin waxba hay dhihin laakiin qayf baan ku leeyahay marka hay qayf hadi saas waa chefna hay dhihin laakiin waxaan ka rabaa kaliya idaacada eeg lacag inta siinaysa bishii marka waaye ma hadda warka sida lacala ma lacala sheega waxa ku siinay idaacad baynu furanaynaa shaqaalaynu u yeeranaynaa laakiin ma anu shaqaala ma rabaa inaan ku noqdo lacala maxay siin doontaa maya waxaan rabaa kala barniyo lacagta noo kala noqonaysa lacagta inaga wada leh hadda mas'uuliyaddeenu ismalihiin ilaahay ka sugo had soo tirina kala saarani adiga laba qof oo kala gooniya naga wax barashada laga hadlaayo laba qof baan kala nahay haye bismillaahir rahmaanir markii idaacad dad ma soo qaadanayna shaqaale ma rabnaa inaan soo qaadano hadda haye waxaan rabaa adiga oo wixii fahansanayn see shaqaale u soo qaadanaysa gabayadan ma akhrin doona heesaha ma akhrin doona wararka wax dhan ma akhrinayna hadhow wax oo dhan adaa ka madax noqonaya laakiin waa inaad fahantaa haye okay tusaale ahaan halkani waa radio kulmiye
oo idinkala hadlaya mawjadaha 18 eber maxaa iga ها fiirinaysaa كان ده أنا قاعد هاي يدي أنا قاعد horta وده warka iga dhuux marka hore marka iga dhuuxdid kadib baan rabaa inaad tiraahdid okay wariyahayaga noo fadhiya magaalada beledweyne ayaa wuxuu sheegayaa meelihii biyuhu kasoo fatahi jireen dhammaan iyadoo oo aan loo baahan cid gaala iyo weliba cid kaalmaysa in ay iyagu dadku si isxilqaan ah oo iyagu keligooda ay owdaan meelihii biyuhu kasoo fatahi jireen ilaa iyo labadii ده sano واحد oo lasoo بدن dhaafay ويدي واحد بدن بأكرن سادي إن لا حبة نوبة شدة ما أنا ما haye waaye ركار بعنا هنوكم مركوي maya waxaa lagaa rabaa inaad raadiya noqotid هي لا بلا حبة يبشر مركوي raadiyaan kaa rabaa inaad noqotid laba xabo biyogelin ayaa la geliyey magaalada هذا بس مقالة دي كلية ده هذا مقالة كلية ده بيجلين أيها لجلية magaalada aan dunida ugu jeclahay ee 3 xiglo ayaa wax la geliyey biyogelin caalami ah iyada oo riigii hore uu ku yaalay riig labaad loo sameeyey مقالة صدق حقلة أيها وحلو السمية بيجلين رجي هرانا لقبض لقبض بالو بحيي بيمعن بأنا كصباحا Iid. waad qaladay نقطة جانا كان وريرين ما أنا ما ورار بحرمنا واي هبي inaa lilaahi wa inaa ilayhi بسم الله الرحمن buuggii dhammaa oo aan wararka ka akhriyayna wararka haddaad tuurtid maxaa رالا دو إيجا حناج سيدي dee bes hadhow dadkana saasa ugu xanaaqaysaa khalaas waa dhacday imtixaanka ku dhacday والله بالله والله ما نكرو اسكو مرنا اني ادي انت حقيقي كنت دور اقري تردي كبطيبه سما ugu dhici kara warka ku soo cali hada ku soo cali magaalo kale ka dhig magaalo kale ka dhig biigelin ma wax kale ka dhig beeri baa wax ka soo go'ay dalag qurux badan oo ma sha Allah okay wararka naga imaanaya magaalada gaalkacyo ayaa waxay sheegayaan inay ka maarantay qudaartii uga imaan jirtay beledweyne oo ay ka yimaadeen roox iyo bitaale yes gacanta wallahi okay magaalada galka ayaa ka maarantay qudaartii uga imaan jirtay magaalada Beledweyne waa ku dhacday ooyina hadhow dadka qofka jacayl ugu bandhijiyay waa damay waa ku dhacday eeg anigu waxaan leeyahay tartiib ilma yar weligood nacnac inta ku dirsadaan aaba nacnac iyo kan kuma dhehen miya waa soo ilaawad si dhow maxaa jacday ugu dhijinaysa ma ilma yar baa noqday marka uguma dhigin laakiin waxaan rabaa inaad wax fahantid halka marada macaawa iga furata ciilka wey waxaas magaalada gaalka ayaa ka maarantay qudaarta uga imaan jirtay Beledweyne ayadoo ay ka soo go'day roox iyo isku shuban qudaar qurux badan oo burburan isku shuban qudaarta uga timaad goormay soo gaaraysaa isku shuban gobolka karkaar goormay maba soo gaaraysaa bismillaahi raxmaani raxiim warka fahan horta war ma rabna bis marka telefishinka maxay raynaa maya bal heesiin u gudub bal inaan ku baahsan may waxay gabayga u gudub de naga dada waan ugu wareerisay maanta waa sheegnay u gudub waxaa laga rabaa marka qaybtood qof baa ku imaanaya moogta qof markuu ku yimaado fanaan anoo kale fanaan ku yimaado moogta marka fanaan ku yimaado waa inaad tixgelisaa sidii bal aad u wareysan lahayd ho qabso bal waa ku tijaabinaya marka hore fanaankii baan anigu soo dhawow alfanaane cimraan qarami meeshaani waa idaacadda dadka tusisa waxa ka madow waxa dadka ka madowday waxa dadka madowday waxa dadka madowday waxa sa arkayntii wala ariga qodolisa idaacadda horta hadhow marka telefishin korta asaasa u qoslaysaa ya maxaa kaa markaa ku soo celi ma rabo inaan wax kuu sheego anaa hadhow geli doona laakiin adiga fanaanad camal adoo yurgenyo isoo hor istaagtay oo kale aan la hadlaya iska dhigi doonaa laakiin hadda ka war anoo kusoo hortaaga fanaanaya alfanaane cimraan qarami kusoo dhawow idaacadeena dadka sida wanaagsan usoo dhaweysa waxaan rabnaa in aan maanta kaa wareysano heesahaaga quruxda badan bulshada Soomaaliyeed dhagahooda soo jiitay iyo indhahooda in bal laxmada iyo miraha iyo dadka ku dhiiba hal iyo labo nooga sheegtid ma wacdi baa akhriyaysaa mise wariyaata wallahi had markaa waa markii ugu dambeysay baan kuru adaa jacda ma igu dhigtid baa kuru mar dambe meel kulma soo istaagna naga daa jacdaada maxaa ka khaldan adiga sidaan warka u akhriyay baan kuru wariyaasha jaamacadaha uga soo baxato ma akhrin karaan maxaa ka khaldan horta adiga wallahi billahi ilaa maxaa u malaynaya maanta isku ka ilaa u malaynaya sheekh heesaan ku weydiinidii idib aniga heesa igu weydiinaad
weriye iska metel baan ku iri weriye iska metel may meeshaan ma waxaan u nimid aan isxaqirno mise qof walba ilaahay taalantiga iyo wuxuu sii ha soo bandhigo aniga waa ay ogtahay ma aan aniga hal mar kuma inkirin xataa eg tusaale ahaan billahi calayk aan ku kaltan maya inaad tiraahdid mudanayaal iyo marwooyin yaan la hadlaya dadkii baan la hadlaya adaan kula hadlayaa dee marka idaacad hor fadhiyay dadkii baa la hadlaysaa aniga miyaa ii sheegaysa soo lataan lahaa dadka dhagahooda kusoo jiiteen iyo indhahooda sitaan lahaa xagee ujeeda adigu sidaas maaha dee sidaas maaha hadda aniga sidii marwadeydii ahaan baan kuula hadlayaa inaan sidii shaqadii kuula hadlaa la rabay soo taateen ma isku nihin marwo ani adiga meeshaan shaqa iskugu nimid kuma oran jacaylka geedka inoo soo saar baan ku iri aniga been hayga nabanay macnaha waxaan ku iri shaqada xaggan iska dhig waxaas jacayl iyo reereer iyo kulli halkaa dhig ma fahmaysaa laakiin waxaa ka hadashaa weriye macnaha markii nin fanaana ah wareysanaysid qaabka lagaa rabo munamiska ha nagu noqon si caadiya qofka u wareyso war anaka waxba noo sheegin kuma wareysan halka xabaa sheegnaba jac nagu dhijinaysaa goorma warramayna way kuma dhijinayo jac kuma dhijinayo laakiin waxaan rabaa wax sharciya soconaya macquul wal adigu waxa haysi keen waxa haysi adiga mudanayaal iyo marwooyin waxaa si habsami leh hortiina u fadhida fanaanada qaaliga ah ee laga daba dhacay waa fanaanadii la holin waayay waa Barlin boqorada barakaysan war anaka fanaan ma hinde maxaa fanaan noo leedahay marka way tusaale maya tusaalaha qof kale fanaan dhe laakiin anigu fanaan ma ihi see fanaan igu tilmaamaysa aniga inaan wax ku barana ma rabtid inaan adigu wax samaysatid oo ilaa waxaa la rabaa eeg farmasiyaal baa la iska furtaa daawo dhacday oo beenbeena baa dadku ku iibshaan adigu dayma jaamacadda horta ka soo baxda warka ugu soo baxda maya waa dhiga dugsi sare miyaa ugu soo maya waa dhiga dugsi dhexe maya jaamacadda saa ugu dhigaynay macnaha ma fruti marka telefishin iska daayo ma channel warara fruti marka sidaasaaba warka jaamacadda wararka lagu barto baan dhiga xididadii baa hadda soo kacay war kaliya bismillah aniga hadda warkayga ma soconay miya idaacadda ma furana mise ku kala tagnaa halkaa mar baan ku tijaabinayaa ciyaaraya xamarka hadal hal mar caqligaaga kaasho halkan waxaa maanta ka dhacay ciyaartii macnaha sidii wariyihii isku day ma dhegaysta horta idaacadaha horfadhi isxiijinaya miyaad argaga mariga halkan waxa soo maray horfadhi miidiyo oo kale iska dhig laa ilaaha illa allah labada xidid baa soo baxay si u qaylinay miyaad haye bal wariye bas iska dhig okay bas aamin musu weli iska dhig amna usul cudwin bay leedahay nin camla maana anigu nin camla marka amna usul cudwin bay leedahay daano cudwin ma lihide waayo wariye kale iska dhig adigu bal wuxuun iska dhig ciyaarihii ayaa halkan maanta waxa koobka qaaday kooxdii muqdisho banaadir wiil baa waxaan ku iri 2 kubadood cirka inta u qaaday 2 gool degdega ayuu wuxuu ka dhaliyay gobolkii ya galmudug ha soo yeedi macna ada isfahmay wax qaldan ina sheegay hadda dhama jacsugnaa markaa sidii ilmo xunaa leeyahay soco asxaabay waxaa la rabaa in ay iyadoon iswaalin oo tartiib ah oo baalkii lahayn inay tiraahdo maxamed khadar oo kale inaa iska dhigtay alla wuu dhaliyey gool buu dhaliyey aniga daybeen igama nabin karti socaan ku iri dadka horta arta alla igu bahdishimiya maanta dhan war ma taqaan mar dambaa ku war ha ilay maan ba ku iri dadkan soo kala saardana saxaab sharafta loo qaymiga badan waa mahadsantii wallahi inta saa ku dhahan ku dhahay daraada ku guritaan ku iri